بسم الله الرحمن الرحيم. هدي الله قدر إن شاء الله أرضي ما أنتم حبرابنا جوجلني فون فوركاست سكندري إنجليش في الصومال عتوكي صدحات عتوكي نصدحات قيبتي صدحات بين حبرابنا هراو حين صار لنا لا بقى يبغى ظهره قيبتك بعده واحد reading comprehension كي أما passage كي قيبت لبعضنا واحد vocabulary كي section كصدحات هو English grammar lesson وعشر كي grammar كها عتوكي نصدحات 10 grammar ka cutubkeena saddexaad aynu ku dhiganayna waxa la yiraahdaa conditional sentence marka 10keenan maanta at the end of this lesson every student should be able to answer dhamaadka 10kan arday walba wuxuu awood u yeelan doonaa inuu ka jawaabo su'aalahan soo socda su'aashooda waxay noqon doontaa conditional sentence ka maxaa loo isticmaalaa imsa qaybood bay leeyihiin imsa nooc baa loo qaybiyaa conditional sentence noocyada loo qaybiyo mid kasta imsa uu si qaybsamaa qaybo uu qaybsamo tirisada loo kala isticmaalo formulooyinka inaan tusaale ka bixino ugu dambeyn wax isku day doonaan analysis ka shaqeyno marka balan mid isku dayno inaynu wax weeyaan su'aalo imkaan isweydiinayno uga jawaabno su'aashooda waxay noqonaysaa waa maxay conditional sentence ereyga condition haddaan al ta ka reebno waa situation xaalad buu af Soomaali noqonaya ta markaynu ku darnana af Soomaaliya waxaan ku macnaynaa shuruudo ku xidhan tahay sentence kuna waa maxay sentence ku wuxuu ka yimaadaa haddaan imika isu geyno group of words kooxo ereyada la isku geeyay sentence baa soo baxa words kuna waxay ka yimaadaan iyaguna group of letters inta haddaynu letter u geyno word baa soo baxay haddaynu word u geynana sentence baa soo baxay marka sentence markay qeexayna waxaan ku qeexaynaa jumladu waa kooxo ereya oo isu tagay macna buuxda leh lana aqbali karo haddii inta laga waayo lama oranayo waa sentence marka sentence wuxuu noqonayaa waa group of words kooxo kelmadaha arrangement oo la habeeyay waa inay ereyadaasi habaysan yihiin sidoo kale waa inay noqdaan meaningful qaar macna buuxda sameynaya waa inay noqdaan sidoo kale waa inay noqdaan acceptable wax la aqbali karo oo dadka luqadda ku hadla ay aqbali karaan ama ay naga qaadan karaan okay aan soo koobo sentence wuxuu noqonayaa kooxo kelmadaha oo la habeeyay macna buuxda leh lana aqbali karo haddii aanay habaysnayn ereyadaadu oo aanay subject iyo predicate lahayn subject is the first part of the sentence it can be a noun or a pronoun and predicate excluding the subject all the other parts of the sentence is called predicate subject mooyaane in alla inta kale predicate la isku dhahdo marka habayn marka leena waa inay subject iyo verb iyo object waa in order noqoto habaysnaato meaningfulna waa inay macne buuxda yeelato haddii sentence-kan ereyada meesha kugu qoran macne buuxda sameynaynin ma noqonayo jumlad sidoo kale waa inay noqotaa acceptable wax la aqbali karo dadka luqadda Englishka ku hadla ay qaadan karaan haddaynu soo koobno marka waxaan odhanaynaa conditional sentence ka Soomaali waa jumladaha ay shuruudo ku xidhan tahay jumladaha ay shuruudo ku xidhan tahay magac labaad bay leeyihiin magacooda labaad waxa loo yaqaanaa if sentence waxa isku mid ah conditional sentence iyo if sentence haddaad tiraahdo conditional sentence ama if sentence waa isku mid haddaba su'aasha koowaad jawaabteeda waxay noqonaysaa waa maxay conditional sentences waxaan conditional sentence or if sentence conditional sentence ama if sentence ka waxa loo isticmaalaa wax dhacay ama wax qofku uu qiyaastay inay dhici doonaan ama wuxuu qofku rajo ka qabo inuu mustaqbalka dhici doono ayaa loo isticmaalaa okay bal marka aynu isku dayno inaan qorno waxaan conditional sentence or if sentence conditional sentence ka jumladaha ay shuruudo ku xidhan tahay conditional or if sentence conditionals ka ama if sentences are used waxa loo isticmaalaa to talk about inay ka hadlaan what could happen wax dhacay inay ka hadlaan baa loo isticmaalaa what could happen ama se waxa loo isticmaalaa in loo isticmaalo what might have happened
what might have happened waxay noqonayaan what might have happened or amase what we wish would happen wax rajo laga qabo inuu dhici doono intaas baa loo isticmaalaa wayaan ku celiyo arday wax isla garanay marka ugu horeysa what's used for conditional sentence or if sentence. Conditional sentence or if sentence talks about what could happen, what might have happened or what should happen. inta loo isticmaalayo ama waxyaabo ay ka hadlaan intaas bay noqonaysaa. Su'aasha labaad ee nagu xigta waxay noqonaysaa conditional sentences-ku imsa qaybood bay leeyihiin. Jawaabtu waxaan oranaynaa conditional sentences-ku waxay leeyihiin laba qaybood. Conditional sentences-ku waxay leeyihiin laba qaybood. labada qaybood ee leeyihiin bay markaa isla yareegi doonaa. midna inoo yara kala saara waxaynu kala yara saaraynaa imisa nooc baa loo qaybiyaa iyo imisa qaybood bay leeyihiin. imika waxaan ka hadlaynaa imisa qaybood bay leeyihiin conditional sentences-ku ama if sentences-ku. waxaan oranaynaa conditional sentence or if sentence have two parts. waxay leeyihiin laba qaybood. qaybta koowaad waxaa loo yaqaanaa if clause baa la dhahaa qaybta koowaad ee ay leeyihiin conditional sentences-ku. qaybta labaad ee ay leeyihiinna waxaa la yidhaahdaa main clause. marka dhammaan conditional sentences-ku ama if sentences-ku waxay leeyihiin labadan qaybood. qaybta koowaad oo la yidhaahdo if clause iyo qaybta labaad oo la yidhaahdo main clause. haddaba waxaynu isweydiinaynaa waa maxay if clause-ku se waa maxay main clause-ku. if clause-ka waxaa loo yaqaanaa condition waa shuruuddii weeyaan if clause-ku. main clause-kana waxaan odhanaynaa waa result waa natiijada dhalanaysa markay shuruuddu timaado ayay noqonaysaa. tusaale haddii aynu bixinno waxaynu odhanaynaa sidan oo kale. waxaan odhanayaa if I work hard haddaan dadaalo I will succeed waan guulaysan doonaa. if I work hard haddii aan dadaalo I will succeed waan guulaysan doonaa. imika jumladda halkan inoogu qoran laba qaybood bay ka koobanta. labada qaybood qaybta koowaad ee ah if I work hard waa if clause-kii oo waa tan iftii ku jirto waana shuruuddii. intan dambe ah I will succeed waxa weeyaan waa main clause-kii waa natiijadii dhalanaysay markay shuruuddu timaado oo waxa weeyaan haddaan dadaalo waan guulaysan doonaa. goormaad guulaysanaysaa haddaad dadaasho. marka guushani waa resultiga ka dhalanaya shuruuddaadani haddii ay meesha timaado. okay waxaan ku xigsiinaynaa imsa nooc baa loo qaybiyaa. jawaabta waxaan ka dhigaynaa conditional sentence-ka waxaa loo qaybiyaa 4 nooc. waxaynu imika isla eegaynaa types of conditionals. types of conditionals waa noocyada conditional sentence-ka. jawaabta waxaan odhanaynaa there are waxaa jira 4 types of conditionals. 4 nooc oo conditional sentence ayaabaa jira. 4ta nooc ee conditional sentence-ka aynu midmid soo qaadano. ka koowaad waxaa la yidhaahdaa zero conditional sentence. ka koowaad waxaa la yidhaahdaa zero conditional sentence ayaa la yidhaahdaa waa ka koowaad. ka labaadna waxaa la yidhaahdaa first conditional sentence. waxaa la yidhaahdaa first conditional sentence ayaa ka labaadna la yidhaahdaa. ka saddexaad waxaa la yidhaahdaa second conditional sentence. waxaa loo yaqaanaa second conditional sentence. ka saddexaad afraad ee ugu dambeeya waxaa la yidhahdaa third conditional sentence. waxaa la third conditional sentence. okay arday imika waxaan isla garanay inaynu ka jawaabno 3 su'aalood oo kamid ah su'aalaha aynu isweydiinaynay. su-aasha koowaad waxay ahayd what's used for conditional sentence.
And just when we are going to know or to understand how is used for conditional sentence, simply you say conditional sentence or if sentence talks about what could happen, what might have happened or what should happen. And each conditional sentence have two parts. The first part is called if clause and the second part of the sentence is called main clause. If clause is the condition and main clause is the result. And there are four types of conditionals and they are zero conditional sentence, first conditional sentence, second conditional sentence and third conditional sentence. In this unit we will cover zero and first conditional. cutubkan arday waxaan ku baran doonaa zero iyo first conditionalka ayaabeen isla eegi doonaa inta la qadaro insha Allah.